waa maxay sentence sidoo egyahay qaabka English sentence-ka waa maxay sentence order-ka sidee sentence-ka loo qoraa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر وضع 10 كان كود English tutorial 10 كان ما تحدد بنا basic sentence structure marka sentence waxaa jumlada structure waxaa qaabka kalimaad jumlada aan ka hadlaynaa qaabka kalimaad sentence-ka English-ka luqad kasta waxay leedahay structure oo gaar ah ku bilaabay aan qoray example ka qoray waxaa waaye I speak English aniga waxaan ku hadlaa English okay waxay ku bilaabatay ficilkii qofka waxa sameeyay aniga I ficilkan waxa leeyahay subject waa ficilka haddaan ka soo gudubno ficilka waxaan u gudbaynaa ku hadlaa waxaan sameeyay marka waxay noqonaysaa ficilka waxa leeyahay verb ficilkan waxa leeyahay verb marka ficilkii waa subject ah verb oo ah ficilkii waxaan soo gudbaynaa English waa luqadii lagu hadlayay waxay noqonaysaa مفعول waxaana dhahnaa object marka qaabkan ay ku imaataa sentence English waxa soo horay ficilkii oo qofkii waxa sameeyay waxaana ku soo xiga ficilkii la sameeyay ay waxa noqon karaa fa'il waa qofkii aniga he asaga she ayada they ayaga ama waxa dhihi karnaa Ahmed Ali asma fa'il noqon karaan magac hadda soo qoran hadda ka soo tagno ficilka imaanayna ficilkii wuxuu ku xigaa fa'ilka position ka ficilka waxa waaye ficilka ku xiga waxaana waa ficil kasta noqon kara speak ku hadla go taga sleep seexda eat ona waxaana u dambeeya object oo ah mafcuulka wuxuuna ku soo xiga ficilka marka waxay qaybsantaa subject verb iyo object example kale hadda fiirino waxa qornay we go to school we anaga waa ficilkii go waa ficil waxay noqonaysaa adna we go anaga waxaan aadnaa to schoolka marka we waxay noqonaysaa subject ficilkii s ayaan kusoo gaabinay go waxaa ficilkii v ayaan kusoo gaabinay subject verb to school waxa waaye object waxaan kusoo gaabinaynaa oo waxaa jira waxyaalo muhiim ah oo laga rabo inaan maskaxda ku hayno markaan ka hadlayno sentence-ka waxaana waaye notes number 1 A sentence starts with a capital letter. Sentence waxay ku bilaabataa xaraf oo capital ah. Example kani I speak English. I waxa waaye capital. Waxa kale dhan waxa waaye small. Number 2 a sentence has a verb. Sentence waxay leedahay verb oo ah ficilkii. Inta verbiga kana speak ku hadla ficilkii la sameeyay waaye. Number 3 a sentence has a subject that's mentioned only once. Sentence waxa ku jira فاعل أو هل مركلية لا صار شيء أنت فاعل كواي I speak English I واي فاعل ك مدة أفراد a sentence ends with a punctuation مركز sentence راح يكون معتها punctuation كوا حواي full stop أو كلا دبق مركز صار المستر جملة دبق عيان سمعناها هذا راح يكاد لنا sentence order كوا حواي نظام كيكو إماتو يصير sentence كيسوي حكت راح يكون بلاوتا subject plus verb plus object وحاول فاعل لو ضرب فعل لو ضرب مفعول عشر كان ما عندي تسويقها وحاجتين أنا فهمتين وحنا بلان حلقة صوصعته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته